gesiga dhulkiisa gusha u horseeda geerida dishaay geedka habo magacayga waxaa la yiraahdaa maxamed cabdirasaaq maxamed abubakar laakiin in muddo ah waxaan ku socday maxamed cabdirasaaq kaliya waxaan ku dhashay magaalada muqdisho 1968 waxaan ku koray Soomaaliya waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe iyo sareba waxaan ku dhameystay Soomaaliya kadib waxaan ka qayb qaatay ama ku gutay halkeygii shaqada qaranka Soomaali gudaheeda anagoo waqtigaas ay ahayd waqti ardada ka qalan jabisay dugsiga sare loo diri jiray inay galaan ciidamada muddo 18 bilood kadib oo aan ciidamada ka qayb qaadanay waxaan wadanka dibadiisa uga baxay inaan doonto waxbarasho cilmiga beeraha oo aan ka qalan jabiyay jaamacad ku taal dalka Pakistan 1991 waqtigaas aan qalan jabiyay nasiib darro waxay ahayd waqtigii dalkii dagaal ka dhacay dawladii burburtay marka waxaan u gudbay oo tagay dalka Mareykanka halkaas muddo kadib waxaan dib ugu noqday jaamacad waxaan dhigtay jaamacad culunta siyaasadda oo khaasatan takhasus ku sameeyay Africa dawlad wanaaga xalinta khilaafaadka iyo wixii la mid ah master's degree ayaan ku qaatay jaamacad la yiraahdo Johns Hopkins University kadib markii aan jaamacadaas dhameeyay waxaa timid fursadii ugu horeysay oo shaqo anigoo shaqo ka helay hay'adda United Nationska UNDP oo Soomaaliya ka howlgalaysay markaas laakiin fadhigeedu uu ahaa Nairobi halkaasaan shaqadii ugu horeysay iyo ku soo noqoshadii Soomaaliya ay igu bilaabatay 2001 laga soo bilaabo 2001 ilaa maanta oo 2016 ah 15 sano si toos ah ama si dadban waxaan uga shaqeynahay Soomaaliya inta badanna arrimaha dawlad wanaaga arrimaha bulshada dhaqaalaha siyaasadda wajiyaal kala duwan ayaan uga soo shaqeeyay haddii aan dib ugu noqdo muddadii 9 sano 8 sano la soo dhaafay mar waxaan u shaqeeyay dawladii TFG-da mar waxaan la shaqeeyay dib ugu laabtay UN-kii oo xafiiskii siyaasadda aan kala shaqeeyay ninkii la oran jiray ergeyga gaarka ahaa Axmed Dawald Abdalla kadibna intii aan hawshaas wadnay waa tii la qabtay shirkii Djibouti oo la isugu keenayay kooxdii ama maaragtay isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya ARS iyo dawladii ku meel gaarka ahayd oo markaas jirtay laguna soo doortay madaxweyne Sheekh Shariif muddadaas aan ka shaqeeyay UNPOS ama xafiiskii siyaasadda oo UN-ka waxay ahayd muddo 2 sano ah kadib waxaan noqday madaxii hay'ad la yiraahdo National Democratic Institute oo ayadan sidoo kale ka shaqeynaysay nidaamkan dawlad wanaaga la shaqeysay baarlamaanka federaalka ka shaqeysay dastuurka wacyigelinta dadweynaha arrimo badan oo la mid ah oo kulligood loogu talagalay in lagu taageero laguna kobciyo tayada waxqabad ee wasaaradaha iyo shaqaalaha dawladda dhamaantood 2014 waan ka tagay hay'adaas waxaanan aasaasay hay'ad la yiraahdo Somali One ama Soomaali waa mid sanadkii 2014 ilaa hadda hay'adaas way jirtaa welina waxay ku lug leedahay waxyaalaha tababarada oo kale sida baarlamaanada iyo wixii la mid ah dejinta manaahijta tababarka baarlamaanka laakiin aniga ujeedada aan u sameeyay waxay ahayd qof Soomaaliya wax u soo bartay oo maaragta wadankii uu maalgelin ku sameeyay in ay ka faa'iideystaan kaliya hay'ado caalami ah waxaan la shaqeeyay World Bank waxaan la shaqeeyay United Nations waxaan ka shaqeeyay hay'ado kale mar walbaba dadkeena wax bartay ama maaragta helay fursadaas in wadankii aan uga faa'iideyno ayay ila noqotay su'aasha maxaad ugu tartamaysaa madaxtinimada Soomaaliya maanta dabcan
waxaan isleeyahay aqoontayda waayo aragnimadayda daacadnimadayda korriimadaydii oo weligay intii aan Soomaaliya ku noolaa arkayay waalidkay labadaba inay u shaqaynayeen dowladda maaragtay shaqaale dowladeed ahaayeen madax dowladeed ahaayeen iyo maaragtay sacrifice-kii ama wixii ay ugu tabaruceen dalkoodii dadkooda baa igu kaliftay inaan is iraahdo waqtigan waa waqtiga ugu habboonaa oo Soomaaliya aan uga faa'iideyn lahayn fursaddan gaar ahaan inaan wax ka qabanno amnigeeda oo aan hagaajino amniga inaan wax ka qabanno dhaqaalaha inaan wax ka qabanno nidaamka dowladnimada iyo dowladnimo wadaagga si dadka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay codkooda ku dhiibtaan kuna doortaan madaxdooda arrimo badan oo noocaas oo tafaftiran runtiina laga wada heli karo maaragta bartayda internetka website oo ah mohamedcabdirasaaq.com iyo Facebooka iyo Twitterka maalin walba waxaan soo bandhignaa siyaasadahaas iyo meesha aan ka taaganahay ayaa igu kaliftay inaan maanta uga faa'iideeyo dalkayga iyo dadkayga intaas waa su'aasha maaragtay tooska oo la ii weydiiyay haddaan dib ugu noqdo maxay tahay waxyaalaha aan ka dhignay ahmiyadda koowaad aan siinayno anigu waxaan bilaabay ololaha tartanka madaxtinimada Soomaaliya muddo laga joogo 3 bilood bishii May 6deedii waxaan ahaa musharaxii ugu horeeyay oo inta tagay Muqdisho kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa muddo waxaan oran karaa inta aan anigu ogahay ilaa iyo waqti aad u dheer ah ku maray wadanka safarro uu ku gaarayo degmooyinka iyo tuulooyin kala badan oo wadanka ah welina damacsan in inta u dhiman gobolada u dhiman uu safar ku tago tan iyo maalintaas aan ku dhawaaqay musharaxnimada ilaa iyo hadda haddii aad dib u fiiriso fariinta ama message-ka aan ka hadlayo waa mid kaliya waa mid dadka inta aan la hadlay ay badanaa igu raaceen maxay tahay Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay midnimadeeda inay soo noqoto waxaan aaminsanahay inay tahay daawada ay u baahan tahay in wadanka dib u soo noqdo oo uu istaago oo ka mid noqdo community-ga wadamada ama bulshada wadamada geeska Afrikada bari iyo adduun weynaha midnimada aan ka hadlayno sidee lagu gaari karaa waxay ku imaan kartaa wada hadal ereyga dib u heshiisiin Soomaaliya runtii waxaan iraahdaa micnaha ayaa looga ciyaaray because 16 jeer oo Soomaali isu timid wixii laga wada hadlay dib u heshiisiin ma ahayn waxay ahayd awood qaybsi waxay ahayd dhisid dowladeed mana dhaleecaynayo wixii horumar oo la gaaray laakiin maanta oo aan haysanno dowlad ma ku dadaali karnaa inaan isticmaalno dib u heshiisiin mid aan ku soo celinayno kalsoonida ummadda Soomaaliyeed ay isu qabaan oo wadankeena aan ku midaynayno haddii aan taas samayn karno waxaa meesha ka baxaysa waxyaalo badan oo dhibaato ah ama khilaafaad ah oo jira waxaa ka dhacay ka soo baxaysa waxyaalo badan oo howlo badan oo qabyo ah ayaa dhamaystirmi lahaa samaynta maamul goboleedyada dhamaystirka dastuurka samaynta hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda loo baahan yahay ka shaqaysiinta kuwa jira maanta inay si rasmi ah u wada shaqeeyaan waxaasoo dhan waxaa moodaa in kalsooni darrada ka dhex jirta dadka Soomaaliyeed darteed looga faa'iideystay in ay si fiican u wada shaqeyn waayaan waxaan aaminsanahay inay tahay furaha koowaad oo aan ku qaban karno badanaa waxaan iraahdaa sidee dad aan isku kalsooneen wax wada qabsan karaan business xataa ma wada geli karaan sidee dowlad u wada dhisan karnaa markaa taas waa midda koowaad midda labaad waxaan aaminsanahay haddii maanta aan ka hortagno waxa la yiraahdo musuqmaasuqa oo heer walba dowladda
ay dadku awood u yeeshaan inay la xisaabtamaan dowladooda in ayadana horumar weyn aan ka samayn karno labada arrimoodba. waxaan jeclahay waxyaalaha kale ee ka mid ah aragtidayda dowladda lagu maamulayo ama hadafka aan rabno in waddanka aan gaarsiino waxaa ka mid ah in doorasho waddanka ka dhacdo. dowladdii ugu horeysay ee Soomaali dib isugu soo noqoto waxaa la oran jiray Transitional National Government TNG. waxay ka soo baxday wadahadaladii ka dhacay carta dalka Djibouti. muddo kadib dowladdaasu 3 sanadood kadib waxaa ka daba yimid wadahadal kaloo laga furay dalka Kenya. halkaa waxaa lagu soo asaasay dowlad yiraahdo Transitional Federal Government. Transitional Federal Government waqtigeeda waa dhamaatay, haddana TFG waqtigeeda la kordhiyay, waxay qaadatay haddana 4-5 sano oo kale. way dhamaatay 2012 waxaa la soo doortay madaxweyne cusub, waxaana la yiraahday transitionkii waa ka baxnay ama kumeel gaarnimadii waa ka baxnay. sidee uga bixi karnaa kumeel gaarnimada haddii howlihii loo baahnaa oo dhan aysan qabsoomin? magac kaliya ugama baxayno. waxaan aaminsanahay kumeel gaarnimada waxaan ka bixi karnaa marka muwaadinka Soomaaliyeed uu awood u helo inuu asagu soo dirsan karo qofka ku matalayo baarlamaanka federaalka, ku matalayo baarlamaanka dowlad goboleedka. marka dadka Soomaaliyeed ay awood u helaan inay dooran karaan madaxweynahooda, maalintaas ayay Soomaali ka baxday kumeel gaarnimada. waa jiraan waxyaalo kale oo maaragtay loo marayo dastuurka qabyada ah oo dhamaystirma, waa loo baahan yahay. waxaas oo dhan waxay ka mid tahay dowladda. haddaan usoo noqdo marka doorashada 2004 oo ah waqtiga TFG-da lasoo aasaasay ilaa maanta 2016 waa 12 sano. sidee ku dhacday in dastuurka uu dhamaystirmi waayo? sidee ku dhacday in dadku aysan dooran karin madaxdooda? waxay ku dhacday aqoon darro, khibrad la'aan, daacadnimo la'aan. intaba waa waxa anigu aan rabo inaan ka hortago oo aan bedelo, oo meesha ay yimaadaan dad cusub, jiil cusub oo madax Soomaaliyeed ah, leh aqoon, karti, daacadnimo intaba. waa suuragal in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho toos ah. waxa ugu horeysa marka aan rabo inaan ballan qaado waa inaan siiyo dadka Soomaaliyeed cod ay madaxdooda ku dooran karaan sanadka 2020. hay-adaha aan ka soo shaqeeyay waxay khibrad gaar ah u lahaayeen qaarkood in howlahaas oo kale ay qabtaan, laakiin waa inay jirtaa dowlad Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay ka guddoonto khibraddaas iyo mucaawanadaas ku saabsan sidii loo qaban lahaa doorasho dowlad wanaagna looga shaqayn lahaa. waxyaalaha kaloo aan kaga hadlay safaradayda aan kula kulmay dadweynaha Soomaaliyeed waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaa ka mid ah dhaqaalaha. waddankeenu waa qani. dadkeena dad badan oo ka mid ah runtii waxay u haystaan Soomaaliya inay tahay waddan aan waxba haysan oo sabool ah. waxaan rabaa inaan ka tuso kaliya 2-3 meelood. waddankeena wuxuu awood u leeyahay hadduu ka shaqeeyo 3 waxyaabood kaliya: beeraha oo aniga aan soo barto cilmiga beeraha ku haysto degree, kalluumaysiga iyo xoolaha. Soomaalidu waxay awood u leedahay in ay wadamo Afrikaan ah ay wax siiso oo qoodiso 3daas kaliya. iska daa maaragtaa macdanta waddanka ku jirta iyo shidaalka iyo waxaas oo dhan hanoo dambeeyaan, laakiin waxa dhulka korkiisa saaran kaliya haddaan ka shaqaysano, Soomaali waxay awood u leedahay inay wadamo kale ayadu ay mucaawano siiso. mid kale wixii ka horeeyay 90meeyadii iyo intii dowladda aysan burburin, dadka Soomaaliyeed badidiisu waxay joogeen Soomaaliya gudaheeda. wax yar oo qurbaha ka shaqaysata ama waxbarasho u jirta ma ahane, dadka Soomaaliyeed waxay ku dhex jireen jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda. maanta dadkaas soo baxay oo dhan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 3 milyan iyo bar
qof oo Soomaali ah inay ku nooshahay qurbaha. dadka qurbaha ku nool waxay maanta lacag u diraan dadka Soomaaliyeed oo ku nool Soomaaliya gudaheeda. lacagta dibadaha laga soo diro waxay dhan tahay ama lagu qiyaasaa 1.2 billion ama 1.1 bilyan oo dollar. macnaha waa 1 bilyan iyo 100 milyan oo dollar. haddii aad u qaybisid 12 bilood lacagtaas waxay ku dhowdahay bishiiba 110 milyan. waa lacagta dadka Soomaaliyeed ay bishiiba u diraan Soomaaliya, u diraan eheladooda. okay, haddaad fiirisid mucaawanada Soomaaliya soo gaarta oo la isku daray oo dhan wadamadaas ajnabiga ah ay bixiyaan, hay-adaha ay bixiyaan, ma gaarto waxa 1 bil ay Soomaalida dibadaha jooga u soo diraan Soomaalida wadanka gudihiisa jooga kaliya. sidee loo oran karaa marka wadankeenu waa wadan sabool ah? taas iyadoo ay fiican tahay oo ay tahay wax aan horey u jiri jirin, waxaad ka fikirtaan gaar ahaan dadka dibadaha jooga iyo kuwa wadanka gudihiisaba jooga, lacagtaas intee in la eg ayay sii socon kartaa? dadka maanta shaqeeya oo lacagaha soo dira intee in la eg ayay weli shaqo ku sii jiri karaan? caruurta ay dibadaha ku dhaleen ama ku barbaartay dibadaha ma yihiin kuwo ku xiran qaraabadoodii Soomaaliya joogtay? rajo ma ka qabnaa in caruurtaas ay sii wadaan inay lacag u soo diraan Soomaaliya ehelkoodii? jawaabtu waa wada garanaynaa. waxay la tahay waqtiga aan haysanaa inuu aad u yar yahay. waxaa loo baahan yahay private sectorka ama shirkadaha maanta jira, shacbiga guud ahaan iyo dowladda Soomaaliyeedba inta isu tagno la wada fariisto aan ka faa'iideysano waqtiga yar ee noo haray sidee uga faa'iideysan karnaa oo lacagahaas ugu bedeli karnaa maalgelin, si haddii berrito lacagtii dadka ay soo jireen ay yaraato, dadka maanta lacagahaas ku nool ay u noqotaa mid u noqota ama maalgelin ama ay kaga kaaftoomi karaan oo berri kaga shaqaysan karaan. waqtiga waa isgurayaa, waxaa loo baahan yahay inaan isdaba qaban. 2 arrimood oo kale aan raba inaan wax ka iraahdo dhinaca ku saabsan dhaqaalaha. Soomaaliya insha Allah haddii aan madax ka noqdo waxaan rabaa inay noqoto wadan ay shirkadaha adduunka u tartamaan inay business ka furtaan Soomaaliya. sidee ku imaanaysaa? midda koowaad waa ka wada hadalnay oo waa haddii aan helno midnimo Soomaaliyeed oo wax ka qaban karta amniga wadanka ka jira oo amnigeena uu fiicnaado. weli intaas kuma filno. waxaa loo baahan yahay kow in baarlamaanka uu soo saaro, soo gudbiyo shuruuc difaacaysa, magan gelinaysa maalgelinta shisheeye iyo midda Soomaaliyeedba, oo shirkadahaas ay ka furan karaan wadanka gudihiisa oo maalgelin lala yimaado wadanka gudihiisa. waa inaan leenahay shuruucdii maalgelintaas lagu hagi lahaa oo ma aragtay looga faa'iideysan lahaa, wadanka uga faa'iideysan lahaa. 1 2 wadankeena waa inuu noqdaa mid markii la rabo in business laga furto ama ay shirkad timaado ay sahlan tahay sida loo furi karo shirkad, oo aysan ahayn wax qaata soo noqo maanta bari wiiga soo socdo soo noqo bisha ku xigta soo noqo ilaa dadkii ay ka niyajabaan oo waxba aan la samayn karin. marka aan ka hadlayo maalgelinta iyo marka aan ka hadlayo shirkadaha, waxaan ka hadlayaa labadaba, shirkado Soomaali iyo hanti Soomaali leedahay iyo mid ajnabiba. haddii wadankaagu uu yahay mid soo jiidan kara maalgelin iyo shirkado Soomaali iyo mid ajnabiba, wadankaaga waxaa ka suuragalaysa in ay ka abuuranto shaqooyin ay dhallinyaradeena badaha ku daadanaya, dadka dibadaha u cararaya ay ka faa'iideystaan oo wadankeena gudihiisa u noqdo mid aan ka wada shaqaysan karno oo ku noolnahay. taasina waa dhinaca dhaqaalaha. waxbarashada, wadamada adduunka waxaa lagu qiyaasaa horumarka ay gaaraan in waxbarashada meelaha laga fiiriyo waxaa ka mid ah waxbarashadu inay leedahay 2 waxyaalood lagu arki karo. 1 waxbarashada inay tahay free ama lacag la'aan. 2 in ay tahay qasab
ilmahaaga aadan guriga kaliya ku haysan karin waa in ilmahaas uu wax bartaa waxaan hore uga sheegay meelaha aan ka hadlay Soomaaliya waxay gaartay heerkaas 40 sano ka hor toddobaatameeyadii Soomaaliya waxay joogtay heer waxbarashada ay tahay free ilaa iyo heer jaamacadeed ay ahayd lacag la'aan ka madaxweyne ahaan waxaan rabaa inay waxbarashadu ilaa iyo heerka dugsiga sare ay noqoto mid lacag la'aan u furan wiilal iyo gabdhaba waa sida kaliya oo aan ku diyaarin karno jiilkii ka shaqayn lahaa waddankeena jiilkii la shaqayn lahaa shirkadahaas iyo maalgelintaas uga faa'iideyn lahaa dalka haweenka meelo badan waxaa laga yiraahdaa haweenku waa laf dhabarta bulshadeena laakiin macna ahaan hoos looma sii galo waddanka intii aan ka shaqaynayay gudihiisa marayay safarada ku galayay meel walba waxa aan ku arkay waxa weeye wax qabadka haweenka hooyo walaal eedo habaryar kulli waa dadka kaca subaxii kalaha ma aragtay shaqeeya keena wixii la masruufan lahaa gurigaas waxay u shaqeeyaan siyaabo kala duwan khudaar ha gadaan xataa qaad ha gadaan dukaan ha gadaan meel ha soo xaaqaan wax allaalo wax ay samayn karaan haweenka waa dadka xilka iska saara gurigaas inuu maanta digsi ka karsan yahay dhaqan ahaan bulsho ahaan wax nagu cusub wey waa waxyaalaha laga dhaxlay intii burburkan uu dhacay in dadkii ay haweenka kaliya culayska uu saarnaado haweenka waa inaan u fududaynaa sidii ay horumarka nolosha ay ma aragtay hore inaan u furno waxa la yiraahdo credit ama bangiyada ay ka heli karaan ma aragtay lacag ay ka deynsan karaan waa in aan ku dhiirigelinaa si ganacsigooda ay u ballaarin lahaayeen waa inaan ku dhiirigelinaa sidii ay waxbarashadooda usoo buuxin lahaayeen sidoo kale waa inaan ku dhiirigelinaa inay siyaasadda ka qayb qaataan taas waa haweenka waxyaalaha kale oo ka mid ah waxyaalaha aan jecelnahay inaan wax ka qabanno horeyna uga hadlay welina laga heli karo informationkaas barta internetka waxaa ka mid ah dhalinyarada daraasaadkii la sameeyey dhowaan waxay sheegayaan in 70% bulshada Soomaaliyeed ay tahay dad da'doodu ka yar tahay 30 sano 70% da'doodu waxay ka yar tahay 30 sano macnaheedu waxa weeye dadka dhalinyarada ah ayaa waddanka u badan dhalinyarada waa dadka ugu horeeya oo waxyeelooba dagaalada socda waa dadka ma aragtay loo qorto ciidamada dhinacyada isdagaalay oo dhan ama qabiil ha ahaato ama maleeshiyaad ha ahaato ama dawlad ha ahaato ama cid walba oo rabta inay dagaal ka qayb qaadato macnaheedu muxuu yahay adduunka oo dhan wuxuu u arkaa dhalinyarada inay tahay mustaqbalkooda dadkii halkaa ka sii qaadi lahaa oo dadka ma aragtaa markay waayeeloobaan waddanka u shaqayn lahaa hoggaankiisa noqon lahaa annagase dhalinyaradeen waa dadka maanta baaba'ay waxaa la yidhi 60% Soomaalidu waxay rabtaa inay waddankooda ka baxaan oo waxay u socdaan dibadaha dadkaas baxaya waa garan karnaa inay dhalinyaro yihiin weli waa xasuustaa murugada ay leedahay shilalkii ka dhacay badaha oo ay ku dhinteen dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qoysas badan oo Soomaaliyeed runtii wax aad looga murugooda ah intaas oo Soomaali ah meel ay hal maalin ku wada dhimatay aniga taariikhda intaan akhriyay weli ma garanayo maxay u socdaan dhalinyarada waxay u socdaan inay helaan nolol fiican inay helaan nabadgelyo inay helaan waxbarasho waa waxyaalaha ay xaq u leeyihiin oo la rabo jiilalka ka horeeya ayaga inay uga shaqeeyaan oo u diyaariyaan dawladdeedu waxay ballan qaadaysaa in waddanka gudihiisa aan ka abuurno shaqooyin
anigoo hore usoo sheegay qaabka ay shaqo abuurkaasi ku imaan karto oo ah maalgashi wadanka la maalgashado iyo inaan fududeyno in shirkadaha maxaan ku rahdaa sidii loo furan lahaa businessyada ay sahlanaadaan. dhinacaas haddaan uga baxo arrimaha bulshada guud ahaan, waxaan rabaa inaan soo noqdo arrin la xiriirta isla dhaqaalaha. waa aniga ka hadlay beeraha. tusaale ahaan beeraha, dadka Soomaaliyeed waxay ka shaqaystaan beeraha, waxayna uga shaqaystaan si qoysas ah, shakhsiyaad ah, ama luqadda Ingiriisiga lagu yiraahdo subsistence farming. waa qofkii qoyskii ayaa beertii falanaya oo keliya. ma jiraan, hadday jiraanna aad bay u yaryihiin in uu jiro wax la yiraahdo commercial farming ama beer falasho maaragtay ganacsi oo shirkado waaweyn ay ka shaqeeyaan intaasoo beerooda laisku daro kilomitro ah oo maaragtay beeraha Soomaaliya ma jiraan. dadkaas qoysaskaas beeraha ka shaqeysta inta badan waxaa dhacda markii dalagii uu soo go'o oo ay suuq geeyaan wixii ka soo go'ay beerahooda, in ay la kulmaan macaawino oo kale ka timid wadanka dibaddiisa ama hay-ada ay bixiyaan, taasoo jebisa sicirkii ama dadkii beeralayda ahaa ayba ku khasaaraan oo aysan ka heli karin wixii ay beeraan. arrinkan ma aha arrin cusub. arrinkan waa arrin muddo hore soo jiray. anigu shakhsiyan taariikhiyan waxaan ula socdaa maalin sheeko yar haddaan sheego. waxaan guriga imid aabbahay isagoo wasiirka beeraha ah ayuu arrinka fikiraya hore iyo gadaal u socday. waxaan yidhi maxaa dhacay maanta? wuxuu yidhi waxaa la joogaa waqtigii beeraha ay soo galeen, waxaa dekedda xamar ku soo xirtay 2 markab oo wada galley. waqtigii galleyda soo go'dayna haddaa la joogaa. markii aan niri yaan la dejinin galleydanna hay-adihii keenay waa ay caroodeen, waxay u dacwoodeen madaxweynaha, cid walba. markaa waxaan u socdaa shir ku saabsan arrinkaas sidii aan wax uga qaban lahayn. galleydaas la keeno marka ay suuqa soo gasho dabcan waxay jebinaysaa dadka shaqaystay beeraha ka soo shaqaystay wixii u soo go'ay. arrinkaas arrin aan ogolaan karna ma aha. beeralayda Soomaaliyeed waxaan u aragnaa inay yihiin dadkii Soomaaliya ka saari karay sidaan hore u sheegay dhibaatada dhaqaale oo Soomaaliya ay ku jirto. beeraha haddii aan ka shaqaysano wadankan dhaqaalihiisa kor ayuu u kacayaa. waa inaan leenahay kartida iyo aqoonta iyo khibradda aan kula xisaabtami karno, kula gorgortami karno, kula meel dhigi karno. wadankan dhowrkii sano markii la joogaba waxaa dhacay roobab xad dhaaf ah ama waxaa dhacay roob la'aan oo waxaa timaada abaar. haddii macaawino ay jirto, macaawinadaas waxaan rabnaa inay noqoto mid dowladda Soomaaliyeed iyo hay-adahaas ay isla maamulaan, ee hay-adaha keligood aysan samaynin sidii ay ka rabaan. waxaan rabnaa macaawinadaas inay noqoto mid la kaydiyo, oo haddii roobab la'aan ay dhacdo oo beeralayda Soomaaliyeed ay wax soo saari waayaan, markaas noqoto mid dadkii ay ku samata baxaan. laakiin ma rabno inay noqoto mid la tartamaysa dadkii Soomaaliyeed oo beeralayda ahaa. muddo dhow waxaan ka hadlayay midnimada loo baahan yahay in Soomaaliya ay yeelato shacbigeeda midaysnaado, kalsooni isku qabo. waxay keentay in dad badan ay weydiiyaan oo yiraahdaan marka nidaamka federaalka iyo arrinta aawada sidee isu waafaqayaan. waa 2 arrimood oo kala duwan waxa aan ka hadlay. federaal iyo nidaam federaal wuxuu ka mid yahay nidaamyada adduunka ka jira ama qaab dhismeedka dowladaha iyo qaabka maamul. midnimana waxay ka hadlaysaa wadanka guud ahaan, dalka iyo dadka midnimadooda. ayagoo midaysan ayay dooran karaan qaabka ay rabaan inay isu maamulaan, ama ha yeeshaan waxa la yiraahdo dowlad dhexe oo central government ah, ama ha yeeshaan unugyo jira oo sida qaabka federaalka ah iyo
kuwa isku dhafanba nidaamka federaalka waxaa la yidhaahdaa federalismka waxay dowladnimada usoo dhaweysaa dadka oo macnaha meeshii dowladnimada baasaboor jaamacad dugsi sare hay-adaha xafiisyada dowladda kulligood aa u aadi lahayd magaalada caasimadda ah waxaa la rabaa in ay kuu timaado oo meesha aad joogtid aad ka heli kartid adeegyada noocaas oo dhan oo aad uga baahan tahay dowladdii dhexe waxaa kaloo u baahan tahay in dadku markay isdooranayaan maadaama ay dadka yaqaaniin kartida iyo aqoonta iyo dadka la jooga ay iyaga dhexdooda iska doortaan dadkii markaas hoggaan u noqon lahaa laakiin federalism macnaheeda ma aha in waddanka la kala gogooyo federalism macnaheeda ma aha waddankan inuusan lahayn ciidan qaran oo ay ka midaysan yihiin federalism macnaheeda ma aha in cid walbaba waxay rabto ay iska samayso waa inay jirtaa dowlad dhexe oo Soomaaliyeed oo lagu wada xiran yahay inkastoo ay maaragtaa maamuladu ay maaragtaa wadi doonaan howlaha local governments-ga ama dowladaha hoose ama dowladda gobolka ay ka shaqeyn doonaan federalism waxay u baahan tahay waxaa jira dhowr waxyaabood oo shuruud ah waxaa ka mid ah inuu jiro dastuur lagu midaysan yahay oo aan cidina keligeed wax ka bedeli karin gobolku wax kama bedeli karo dowladda federaalkana keligeed wax kama bedeli karto waxaa loo baahan yahay in laisu yimaado laga wada hadlo markaa wax laga bedelo dadweynaha lagala tashado kadibna afti dadweyne loo soo bandhigo macnaha wuxuu leeyahay geedi socod iska bedel maaha marka waa inuu jiraa dastuur tan labaad qaabka canshuuraha qayb canshuurta ka mid ah oo dowlad goboleedka aruuriso waxaa loogu talagalay inay ku daboosho baahida dowlad goboleedka qaybna ay u gudbiso dowladda dhexe si ciidamada qaranka arrimihii dibadda bangigii dhexe samaynta lacagta waxyaalaha ka dhexeeya goboladaas oo dhan oo dowladda dhexe loo samaystay loogu bixiyo kharashaadka noocaas marka midna waa qaab maamul midna waa dalka iyo dadka midnimadiisa maanta waxaa jira ilaa iyo 27 wadan oo qaatay nidaamka federaalka laakiin xoogga maanta waxaa la sii saaraya waxa weeye tan dowladaha hoose maxaa yeelay dowladda hoose dowladda degmada areada aad ku nooshahay oo mayorka iyo maxaa la yiraahdaa duqa magaalada iyo dadka ma aragtaa city councilka waa dadka ku dhex nool bulshadaas oo ay soo doortaan oo og baahida loo qabo dugsiyada jidadka booliiska biyaha iyo wixii la mid ah canshuurta marka qofka wadaniga uu bixiyo sida loo qoondeynayo waxaa la rabaa dadka deegaankaas jooga local government ama dowladdaas hoose inay ayagu u codeeyaan oo go'aan ka gaaraan marka kama hadlayno kaliya saddex waxaan ka hadlaynaa heer oo maaragtay nidaamka dowladnimada mid waa dowladdii dhexe mid waa dowladdii gobolka midna waa dowladdii hoose tan qofka muwaadinka u sameynaysa macno weyn ama saameyn ku leh noloshiisa waa dowladda hoose kadib dowladda dhexe gobolka kadibna dowladda dhexe qofka muwaadinka waa inuu helaa adeegyada uu u baahan yahay oo dhan heerkiisa degmo ee uu joogo oo ku sugan yahay waxay la tahay inaan daboolay inta badan arrimaha aan jeclahay in Soomaaliya aan kusoo kordhiyo oo ugu horeeyo kalsooni iyo midnimo Soomaaliyeed taasoo keeni doonta inay wax weyn ka tarto midnimadeena wadajirkeena dalkeena aan ku difaacan karno dadkeena aan ku maaragtay daryeeli karno labo waa tan musuqmaasuqa howlaha kaloo badanna ayadoo si tafaftiran oo qoraal ah ayay waxay ku jiraan bartayda internetka oo ah mohamedcabdirasaaq.com mahadsanid gesiga dhulkiisa gusha u horseeda geerida dishaay geedka habo